habeen fadli badan weeyo qiimo badan dembiga dhaafka allah lagu helayaa tabaaraka wa tacaala maqfirada ilaahay macaankeeda lagu helayaa ilaahay baa ducada ajiibaya si gaara naxariista allah soo degaysa waa deganaan iyo qabow waa xasillooni iyo buuqla'aan inuu habeenkaa fadli badan yahay waxaa ku tusaya sida ay culummadu iskugu khilaafeen weliba khilaaf aad u tiro badan kaasoo tusaya fadliga habeenkan maxaa yeelay caalim kasta wuxuu rajaynayaa inuu ku habsado sidii sawaabka ahayd sidaasayna u kala aragti duwanaayeen oo ay u kala baxeen oo nin walba hameen uu ku dhuftay qaar waxayba dhaheenba sannad kasta ay ku jirtaa sida laga sheegay cabdullaahi ibnu mascuud iyo koox ka mid a culimmadii reer kuufa sidaasoo kalena waxaa laga wariyey abuu xaniifata raxmatullaahi calayh qaar waxayba dhaheenba sida abuu xaniifa laga sheegay 7 sanaba hal mar ayay soo noqotaa 6 sanay maqnaanaysaa leylatulqadri sannadka 7aad ayay imaanaysaa marka waa wareegto sida abuu xaniifa laga sheegay inkastoo aharta arrintaa looga wariyey aysan sugnayn oo sanadkeeda uu daciif yahay culimmada qaar waxaaba ka midaba dhahaya bishoo dhammaan wayba ku jirtaaba hadba meel bay ka degtaa qaar yidhaahda waa 15 iyo qaar yidhaahda 17 iyo qaar yidhaahda waa 19 hase ahaatee qowlka sawaabka waa qowlka dhahaya 27 weeye asagana inkastoo aan loo hubin si qadcan ah oo go'an oo yaqiin ah laakiin calaamaadka aynu soo tilmaannay ayagoo ku dhisaya ayay waxay dhaheen waa 27 hadalladii kalena waad soo martay taa waxay ku dareensiinaysaa inaad habeennada dhammaantood dadaashid oo aan lagaga qaalib noqon si aad u asiibtid maxaa yeelay habeenkaad ka raadinaysa waxaa laga yaabaa habeenkii kale inay gasho oo aysa kaas ahayn aad ka raadinaysa adiga marka dhammaantood wada cibaadayso 10 ugu dambeeya arrimaha kaloo ay tilmaamaan culammada waxaa ka mid ah habeenka 27aad ee bisha ramadaan haddii uu jumco ku soo aado waxayba dhaheenba markaasi waaba sii xoog badan tahay inuu leylatulqadri iyo habeenkaa noqonayo aad bay u sii xoog badnaanaysaa calaa kulli xaal waxaa la tilmaamayaa qofka muslimka ah mar kasta inuu dadaalo oo habeennada uu ka faa'iidaysta dhammaan uusan hal habeenna isku hadlayn maxaa yeelay inay ka wareegtaa laga yaabaa marka jannada ilaahay tabaaraka wa tacaala kabaha aad qabteed way kaaga dhowdahay sidoo kalena naarta way kaaga dhowdahay ee iskaad u camalfali lahayd adigay kuu taallaa xisaabtun waa adigay ku daba soconaysaa maalinta qiyaamaha ibnu maaja xadiis buu wariyey iyo kayrkiisba weliba xadiiskaasoo ah xadiiska camar ibni cabasata saxaabigaa wuxuu leeyahay waxaan u tegey nebigeenna calayhi salaatu wasalaam markaasaa waxaan ku yidhi yaa rasuulallah man aslamaka macaka yaa rasuulallah calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahayow yaa kula soo islaamay yacni dadka kula jira ee muslimiinta ah waa imisa waa xilligii maka ee bilowgii islaamka rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xorrun wa cabdun mid xor ah iyo mid addoon ay la jira oo markaas ay culummadu ku sheegaan abuubakar iyo bilaal iyo inay ahaayeen markaasaan waxaan ku yidhi buu yidhi hal min saacatin aqrabu ilallaahi min ukhraa saacad saacadaha ilaahay aan uga dhowahay ma jirtaa qaala nacam jawfu leyli alawsad habeenka bartamihiisa xilligaas ilaahay aad baad ugu dhowdahay tabaaraka wa tacaala marka xadiiskaa wuxuuna dareensiinayaa walaalayaal dhiirragelin laysku dhiirragelinayo laysjeclaysiinayo wakhtigan oo ah habeenka bartamihiisa weliba dhinaca dhammaanshaha hadduu u sii bato weeyee habeenkaasoo weliba ducada aad loo aqbalo oo si gaara ilaahay tabaaraka wa tacaala baryada u aqbalo habeenkaasoo ah habeenka leylatulqadrigi la rajaynayo leylatulqadri khayrun min 1000 shahrin habeenkuu ilaahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala marka qofka waxaa u habboona u fiican inuu fadligaas ilaaliyo muddadaasi gaaban habeennadan wanaagsan ee ramadaanka ugu dambeeya ee iska sii dhammaanayaba inuu qofku sunno iyo wanaag iyo khayr ku dadaalana waa shay u fiican habeennadaasuu weliba rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam uu ku warramay oo uu sheegay in ay tahay habeennadii la rajaynayay leylatulqadri sida aynu soo marray wuxuu leeyahay saxaabigii la yidhahdaa abudarri radiallahu tacaala canhu wuxuu yidhi waxaan ahaa dadka kan ugu su'aasha badan oo ugu weyddiinta badan habeenka leylatulqadri rasuulka ilaahay baan weyddiiyey calayhi salaatu wasalaam oo waxaan ku yidhi rasuulka ilaahay ma ramadaan bay ku jirtaa mase bil kale oo rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam waxay ku jirtaa ramadaanka waxaan ku yidhi buu yidhi rasuulka ilaahayow ma inta ay nebiyaashu nool yihiin bay leylatulqadri jirtaa oo markay nebiyadu dhintaan waa la rafacaa mase ilaa yowmi alqiyaamati way jiraysaa leylatulqadri markaasuu yidhi calayhi salaatu wasalaam bal hiya ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamaha waa jiraysaa lama rafacayo ee 10 ugu dambeeya ka raadiyu yidhi calayhi salaatu wasalaam su'aalo masaladaa ku saabsanna waa sii weyddiiyey abudarri alkhifaari radiallahu tacaala canhu waa annagii soo marnay weliba habeennadaasi inay fiican tahay
si gaara in laysku nadiifiyo oo laysku qurxiyo walidaalika waa annagii soo marnay dadkii hore salafka qayba ka mid ah inay sidaa samayn jireen masaajidoodana ay nadiifin jireen oo ay wanaajin jireen waxyaalaha ay masaajiddaa ku wanaajin jireen waxaa ka mid ahaa sidaa aynu soo qaadannay cibaadada ibnu jariir wuxuu leeyahay waxay ahaayeen dadkii hore wanaagsanaa kuwa qubaysta habeen kasta oo ka mida 10 ugu dambeeya ramadaanka salafkii sidaa samayn jireen waxaa ka mid ahaa ibraahim annakhaci ayuub baa soo marnay isaguna sidaasuu samayn jiray asikhtiyaani raxmatullaahi tacaala calayh zir ibnu xubaysh sidaasuu samayn jiray anas binu maalik iyo kuwo badanoo dadka hore wanaagsanaa ka mid ahaa oo ay saxaabadu ku jiraan ridwaanullaahi calayhim hase ahaatee isqurxinta daahirka ah ma dhammaystirmayso ilaa qofka uu gudaha iska daahiriyo oo qofka sidee buu gudaha iskaga daahirin karaa wuxuu iskaga daahirin karaa gudaha towbada noqoshada ilaahay tabaaraka wa tacaalaa uu u noqonayo uuna iska daahirinayo dembiyada uuna iska saarayo xasadka xumaanta kibirka ismaqashiinta iyo hallagaa sheegadaba qalbigaadaad daahirinaysaa oo nadiifinaysaa colaadda qofka kale aad u haysid baad iska saaraysaa maxaa yeelay qof walaalkiisa qof colaad u haya hamaynadaa looma dembi dhaafo sidaa aynu soo marray hadduu qofka gudihiisu iyo qalbigiisa iyo uurku jirtiisu ay xumaan ka buuxdo korna uu iska daahirinayo iska nadiifinayo hariyo hameen uu qubaysanayo dhar wanaagsanna uu xidhanayo waxba u tari mayso maadaama uu gudaha kharaab ka yahay walaalayaal salaatuleylku waa mid aad fadligeedu uu u weyn yahay dembiyadana alla waa ku dhaafaa towbad la jirkeed irsaaqaddaa ilaahay ku waasiciyaa tabaaraka wa tacaala salaatuleylku waxay sabab u tahay in uu qofku rabbigii la faqo oo u la hadlo ayagoo dadku ay hurdaan oo cidna aysan mashquulinayn salaatuleylku waxaa weeye waddada ku gaarsiinaysa raalli ahaanshaha ilaahay tabaaraka wa tacaala iyo weliba jannadiisa salaatuleylku waa wax furan sannadka dhammaantiis sidaas ayaynu u fadli badan tahay maxaad mooddaa marka habeennadan aan habeennada kale la mid ahayn qofka salaatuleyl tukada ayadoo salaatuleylku ay fadli badnayd hadduu haddana habeennadan istaago fadligii fadli badan baa ku sii darsamay marka qofka wanaagga doonayow habeennadii ramadaan intii ugu dambaysaa sii socota ma garan doontid sannadda soo socda ma haleeli doontaa ee hadda ka faa'iidaysoo daba qabso qofka waraaqihiisa ay dembiyadu buuxiyeenow miisaannadiisuna ay dembiyadu buux dhaafiyeenow wanaaggiisana uu yaraadayow muwayse kuu habboonayn hadda inaa isdaba qabatid adoo ku jira ramadaan dabaysha cabsida goormay ku qaadi doontaa goormaad la wadaagi doontaa dadka wanaagsan wanaaggooda waxaad la yaabaysaa mid ismoog geeriduna ay dafayso saaxiibkiis iyo walaalkiis iyo dadku garanayay asaguna ismoog yahay weliba asagoo hilmaamay abaalmarkiisii dembiyada uu samaynayo ka imaanayay oo iska seexday markaas oo dhinaca dhulka dhigay leylatulqadri waan soo marno walaalayaal calaamado badan inay leedahay calaamadahay leedahay waxaa ka mid ah habeenka leylatulqadriga uu soo galo xidiguhu ma soo daataan oo xidig dhacaysaa arki maysid sida habeennada kaloo caadiga loo arko weliba meelaha baadiyaha xidigaha laga arka ayaa laga arkaa xidig dhacaya oo shayaadiintii samada soo fuulaysay baa lala dhacayaa hase ahaatee habeenka leylatulqadriga xidiguhu ma dhacaan oo ma soo daataan oo xidig dhacaya arki mayso la tuurayo dambaambure qorraxduna subaxeeda waxay ahaanaysaa qorraxdaasi mid siman oo aan shucaac lahayn sida qamar ama dayax jooga 14 ayay la mid tahay shayddaanku qorraxdu la soo baxaa subax kasta marka laga reebo habeenka leylatulqadriga ah shayddaan markaas soo agdhowaan mayo habeenka leylatulqadriga ah calaamadaheeda waxaa ka mid ah habeenkaasi shayddaan axad duufsan mayo cudur ku dhufan mayo fasahaadin mayo sixirku ma qabanayo yacni dadka wax sixir hadday is yidhaahdaan wax sixir habeenkaas sixirkooda ma kacayo sida anas binu maalik laga wariyey inkastoo xadiiskaas uu dacfi ku sugan yahay habeenkaasi eydu ma ciddo way aamusan yihiin habeenka leylatulqadriga habeenkaasi nuur ayaa baxa inkastoo culammadu isku sii khilaafeen nuurkaa wuxuu yahay laakiin calaamaadkeeday ka mid tahay marka waa habeen la jecel yahay waa habeenka ugu fadli badan sannadkoo dhan
inkastoo rasuulkeenna laga wariyey calayhi salaatu wasalaam dadka xuduudaha ilaaliya yacnii ciidanka xuduudda ilaaliya ayagu ilaalinta ay ku jiraan ayaa uga fadli badan habeenka leylatulqadriga yacnii qofka mujaahidka ee dhufayska ku jira kaasay soo hoosgelayaan ciidanka muslimka ah ee ilaalinaya xuduudda dalkaasi muslimka ah ay ka dhasheen daacadna ay ka tahay le'anna dalkoo xumaan laga dhowro waxaa weeye waa diintoo loo gargaaray maxaa yeelay dadkii muslimiinta ahaa ayaa ammaan ku cibaadaysanaya marka ninka askarigaa xuduudda jooga ilaalinaya asagu ilaalada ku jiro habeenkaas leylatulqadri asagaa uga fadli badan habeenkaasaa u fiican asagaa u fadli badan maxaa yeele muslimkii dhammaan cibaadaysanayuu ilaalinaya ammaankooda marka asaga habeenkaas ilaalada ku jiro ayaa uga fadli badan leylatulqadri waana xadiis rasuulkeena laga wariyey calayhi salaatu wasalaam oo saxiixa laakiin guud ahaan leylatulqadri aad bay u fadli badan tahay sanadkana ayadaa ugu fadli badan marka habeenkaas salaad iyo qur-aan iyo allabari iyo duco iyo khayr iyo alloo laysku dullaynayo baahideenna oo u bandhiganayno waa in la muujiyaa habeennada aan ka daba qabsanno qofkii habeennada waxay ka horreeya gabood falayow hadda isqabo qofka inuu xoogaa caajisa ku yimaado ama xoogaa uu il duufo arrintaasi waxaa weeye dabeecadda bila'aadanka laakiin yuusan noqon ilduufkaadu iyo gaboodfalkaadu habeennada fadliga badan ee laga qaniimaysto habeennadaas yuusan noqon iyo habeennada lagu tartamo